runtii maanta waa maalin weyn, waa maalin farxadeed. gobolka Banaadir caasimadda Soomaaliya Muqdisho si guud si gaar ahaan degmada Gubadley iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada Gubadley oo maanta aan halkaan uga xarig jarnay iskuulka hoose dhexe ee gabdhaha Sheekh Cusmaan Xidig. waxaan leeyahay hambalyo reer Gubadley. runtii sanadkan sidaad idinkuba ku aragteen adeega dawladda ee waxbarasho leh ee caafimaad leh ee caasimadda ka socdo inay kaalin wanaagsan amba qayb wanaagsan ay ka soo gaartay reer Gubadley. iskuulkan muddo aan dheeraynin ayaan halkan ka maaragtay dhagax dhignay isaga oo meel bannaan ah. haddana sida ay u camirantay hareeraha iskuulka waxay ku tusaysaa reer Gubadley inay xataa wacyigelin ka dhan yihiin intaan iskuulka dhisaynay. ayagana hareerihii ayay deegaameeyeen oo magaalay noqotay hadda markaan yihiin oo iskuulkii hareerihiisa kaala arag si uu qurxoon yahay oo u degaamoomay. markaan dhagax dhigaynay geeskaas ayaa guryo ka muuqdeen lamayeri ah. haddana waa kana hareerihiisa filooyinka iyo saraha iyo khayrka ku yaallo. masaajidkii weynayna waxaan rajeeyahay inuu iskuulka kasoo ag dhawaado isagana oo haddii ilaahay kuuro yahay sidaan ay maaragtay maraafiqda caamka ahayd isla deegaankan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan keeni doonaa MCH ayaan isaguna keeni doonaa hooyada ee dhallaanka. agaasiga waxbarashada gobolka Banaadir iyo guddoomiyaha degmada Gubadley iyo shacabkuba waa u mahad celinayaa. wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo mar walba maamul gobolka Banaadir la garab taagan hil iyo hoo iyo dhiirigelin la xiriirto sidaan horumarin lahayn waxbarashada gobolkana iyaduna waa u mahad celinayaa. waxbarashadu waa aqoon, waa xirfad kuma salaysna qabiil iyo kooxaysi. qof walbay waxaa taqaanaad la goobtegaysaa. iskuulkii waa kana waa idin dhisay yahay, waa qurux badan yahay. reer Gubadley waxaa laydinka rabaa inaad ubadka geysataan, inaad ka faa'iidaysataan. gabdhaha Gubadley ku nool gaar ahaan eriyadan hadda iskuulka waaxdan uu ku yaallo inaa waxaa la rabaa guri maaragtay gabar hooyo iyo aabba dhihi karto oon aan iskuulka soo aadaynin inayna jirin aa la rabaa ood iskuulkaa wada timaadan haddii la yidhahdo. guddoomiyaha degmada iskuulkan kaalin weyn oo ayuu ka qaatay. saa markaan iskuulka u dhisnay dhammaystirkiisa iyo interlogan quruxda badan isxilqaam gaar ah oo guddoomiyaha burhaantiisa iyo karaamadiisa uu ku soo bandhigay oo kula soo deeriyey. guddoomiye adiga iyo degmadaada iyo shacabkaagu waa kuu mahad celinaynaa. qof walba waxay qabata waa la sheegayaa. annaga sideenaba maamul haddaan nahay bulshada waxaan u nahay hoggaan. waxaan tusnaa sida wanaagsan waa u bilownaa waana kaashanaa. marka maamulka naga hooseeya inuu asaga inta nala fahamiyo meeshay ka dhimanta uu ka qabto oo sidaanoo kale u qurxiyo u dhammaystiro. guddoomiye waa ku mahadsan tahay. waana arrin mudan in la sheego la bogaadiyo. aad iyo aadaa u mahadsan tahay reer Gubadley. markaa dee waad aragteenaan u malaynayaa dowladnimada macaankeeda. dowladnimada macaankeeda waad aragtaan. Gubadley iyadoo maaragtay meel yaroo xaafadahoo isku raran ahoo waddooyin lahaynin ayaan hadda ka hor 2014 markaan xilka la wareegay fatradeedii hore gobolka ayaa akhyaar deegaanka ahoy intay ii yeereen ay dhaheen warniyahow bal sidaan noo dhaano waddooyinna noo sameey sharcina noo sameey aan dhulku ku kalaabaysano. xeer iyo sharci iyo waddooyinaan u sameeyey. waxay ahayd bilowgii dowladnimada. Gubadley waa ku dhisantay, hantidii waa lagu kala milkiyey. dabadeedna waa imaadeen waxay dhaheen bal si aan adeega dawladda iyo horumarka caasimadda ka socdo wax nooga soo gaaraan noo aqoonso maaragtay beel waa u aqoonsaday maamuladii iga dambeeyey
ayaa xilligaas waxaa talihayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne dal xoreey ayaa talihayay marka Goboley laga dhigaayay haddii ilaahay kuu roon yahay beel oo sidaas loo hagaajihayo maanta horumarkan ay gaarayso oo waxbarasho leh oo caafimaad leh oo amni leh ood ogtihiin maanta in degmadu booliiskii iyo nabad sugidii ay ka shaqayhayaan qorihii waaweynaay iyo maryaameyskana laga sifeeyey dal xoreeye jihayntiisa iyo dadaalkiisa iyo horumarka oo dowladnimada dhinac kasta ka samaynayo inta fatradan labaad oo xilka ku soo laabta ayay ku salaysan tahay annaga shaqadan aad qabanaysaan oo arkaysaan waa shaqo noola soo idmaday waa shaqo biriga mataqaanaa nagula kor joogtayhayo waa shaqo nagula xisaabtamayo waa shaqo aan wakiil uga nahay waliye amarka guud ee qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne dal xoreeye sidaas ayay shaqada ku qabsoomaysaa maahane ma ahan mid muungaab iyo guddoomiyaha degmada iyo agaasimaha ka soo bilaabata maahan ma ahan mid wasaaradda ka soo bilaabata maahan dal xoreeyey ka soo bilaabataa asagayna ku dhammaataa oo hadda markaa inta ka laabto iskuulkii gabdhaha Goboley waa soo furaan leh madaxweyne waxaan u sheegaa hoo kale MCA u dhimanaan u sheegayaa waxaan u sheegayaa hoo kale isbitaal weyn u dhimanaan u sheegayaa degmada ay yeelato waxaan u sheegayaa wadooyinkan bacaadka ay degmada leedahay inaan laamiye laga dhigo oo laamiye waaweyn ay dhex maraan iyadana waan sheegayaa haddii la yiraahdo markaan guddoomiyaha degmada waxaan ka rabaa inuu degmada soo qiimeeyo wadooyinka ugu muhiimsan ay tahay in laami la mariyo ayaa haddii ilaahay ku rajaynaya inaad soo calaamaysid si aan annagana ugu qorsheyno si aan laami u mari lahayne wadada weyn ee xamarka soo baxday ceel cadde ayuu xamar asalkiisa ku ekaa jiray waa ogtihiin haddana dawaa sii socdaa ilaahay niyu muqdisho iyo warshiiqo gaaro hayaa wado weyn oo 80 kilomitir aagaas aadi doonto Goboley way saameynay barka weyna dhex maraysa haddii la yiraahdo marka waxa waaye waxa soo dhana horumar ah waxa lagu gaaro hayaa dawladnimada lagu gaaro hayaa marka reer Goboley dawladnimada taageera dawladnimada dhuuqsada iyada ah furaha horumarka amniga ayaana asaas in nabadgelyo ah waa maasantiin markaan nabadgelyada ayaa ah horumarka furaha asaasku ah nabadgelyada waay saa daraadeed ciidamada nabadgelyada booliiska iyo nabad sugidda degmada ka shaqeeya la shaqeeya cid kasta oo nabadgelyadaas yacni caqabad ku ahna farta ku fiiqo ku gacan siiya maamulka degmada iyo booliiska iyo nabad sugidda inay gacanta ka qabtaan ee cadaalad horgeeyaan ku gacan siisay la idin raba intaas markaan maamul gobolka Banaadir wuxuu diyaar u yahay inuu guud ahaan yacni waxbarashada hormariyo hambali ayaana leeyahay agaasimaha waxbarashada gobolka Banaadir